kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada daawan doontaan waxa ugu waaweyn Israa'iil oo la soo baxday awood cusub oo aqoonsiga Somaliland ay ku meel marinayso. Haddaba maxay tahay awoodan cusub yaa loo adeegsanayaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay Turkiga iyo dawlado kale oo saameyn xoogan yeelanaya iyo sidoo kale dagaalka ay ku dhawaaqeen dhinacyada cadawga Somaliland ee markan sida degdega looga jawaabayo ayaan muuqaalkan xogiisii ugu dambeeyay kugu soo gudbin doonaa, balse marka hore si aan faafahinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share garayso like saarto meel fog gaarsii qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan aynu ku soo gudbin adigoo rukumanaya barteena Rage TV program baralka digniinta aragtidana qaybta hoose faalada ama commentiga inoogu reeb. waa hagaag aynu ku bilowno. waxaa markani Israa'iil iyo dawlado kale oo dhowra ay qaadeen tallaabooyinkii ugu dambeeyay uguna waaweynaa, taasi oo loo muujiyay inay horseedi doonaan in laga hortago qorshayaasha hadda taagan iyo dhaqdhaqaaqyada hadda socda, iyada oo tani ay muujinayso in cadaadis horle la saari doono dhinacyada cadawga Somaliland lagu tilmaamay, loona eegi doono markan sidii loo soo afjari lahaa qorshahooda aadka u daba dheeraaday iyo dhaqdhaqaaqyadii socday maalmihii la soo dhaafay. macluumaadka xasaasiga ee Rage TV uu helay ayaa muujinayay inay kordheen dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay, tallaabooyinkii ugu cuslaa oo tani la mid ah, iyo sidoo kale in markani ay horseedi doonaan dhacdooyinkan taagan tallaabooyin degdeg ah oo looga jawaabi doono isla qorshaha arrimahan ku salaysan, iyada oo la eegayo diiraddan la saarayo waxyaabihii ugu dambeeyay ee sida gaarka ah markaasi loo fulinayo. xogaha aynu helnay ayaa intaasi ku sii daraya in Israa'iil markan ay awood military u adeegsan doonto iyo weliba taatikooyin cusub sidii ay u bedeli lahayd qariirada guud ee geeska Afrika, sidoo kalena wax badan looga bedeli lahaa tallaabooyinka arrimaha Somaliland loo qaadayo, iyada oo la eegayo qorshahan oo diiradda la saarayo laguna tilmaamay inay yihiin kuwii ugu waaweynaa ayaa waxa ay hadda yihiin dooda taagan, waxaana miiska ay la soo fariisteen dhinacyada Somaliland hadda taageersan in ay bedelayaan dhammaan qorshayaashii hore iyo dhacdooyinkii hore u taagnaa, iyada oo la eegayo tallaabooyinka guud, waana midda soo dejinaysa sidoo kale hadda in la qaado mowqifyo waaweyn oo cad iyo qorshayaal u degsan dhinacyadan oo ay diiradda ku saarayaan sidii ay u soo afjari lahaayeen isla tallaabooyinka iyo dhacdooyinka waaweyn ee taagnaa maalmihii la soo dhaafay. macluumaadka aynu helnay ayaa muujinaya hadda in diiradda la saari doono oo ay dhinacyadani ku kala adkaan doonaan mowqifyada waaweyn ee hadda taagan, si gaarana loo kala adkaan doono ayaa muujinaysa inay tahay tii ugu weyneed isla tallaabooyinka hadda taagan ee diiradda lagu saarayo qorshihii ugu dambeeyey ee arrimahan lagu saleeyay, iyada oo mowqifku uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee aadka markaasi u bedelaya qariirada iyo sidoo kale tallaabooyinka ee geeska Afrika ka socda, iyada oo durbabaha ay dhinacyadani muujinayaan in la gaaray heerkii ugu sarreeyay tallaabooyinka hadda taagan iyo macluumaadka lala xiriirinayay qorshaha waaweyn ee aadka isku soo tarayay maalmihii la soo dhaafay. in xilligan dawlado dhowr ah gorgortankan ay ku jiraan, sidoo kalena Somaliland ay heshay garbo cusub ay ku duuleyso, waxay ka dhigan tahay in sare loo sii qaaday qorshaheedii ugu dambeeyay ee tallaabooyinkan waaweyn, waxaana hadda soo kordhaya isla qorshayaal kale oo aad u culus iyo dhaqdhaqaaqyo aad u bedeli doona waxyaabaha socda. guud ahaan marka la eego sida ay wax u socdaanna waxay ka dhigi doonaan isla tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee dhinacyadani ay qorsheynayeen, iyada oo hoggaanka ugu sarreeya ee tallaabooyinka qaadaya ee wax kasta bedeli doona ay markaasi noqon doonaan kuwo xoojinaya dhinacyadan kala duwan go'aanada markaasi ay gaareen, iyada oo durbaba la eegayo sida ay wax u wadaan iyo go'aanada ku salaysan isla qorshaha la filayay waqtiyadii ugu dambeeyay in ay wax badan bedeli doonaan. macluumaadka aynu helnay ayaa diiradda saaraya si gaar ah in qorshahani uu yahay mid degsan, waqtiyadii ugu dambeeyna aad loo adkeynayay. macluumaadka kale ee la helayo ayaana si degdeg ah markaasi mowqifyadii hore wax badan uga bedelay, waxaana go'aanada taagan ee dhinacyadan kala duwan ay ku lug yeelan doonaan ay yihiin kuwii ugu dambeeyay uguna waaweynaa ee diiradda la saarayo si loo soo afjaro qorshaha kama dambaysta ah ee arrimahan la xiriira iyo dhinacyadan
qorshaha ay ku doonayaan weliba si gaar ah in ay u adkeeyaan macluumaadkiisii ugu dambeeyey ee dhacdooyinka waaweyn ee taagnaa maalmihii lasoo dhaafay. xogaha aynu helayno ayaana tani ka dhigaya mid aad u qorsheynaya, sidoo kalena u xoojinaya isla tallaabooyinkii ugu waaweynaa ama ugu dambeeyey ee aadka diiradda loo saarayay, iyada oo ay durbaba markaasi awood cusub oo military iyo tallaabooyin dhaqdhaqaaq horle markaasi ku salaysan ay dhinacyadan lasoo bixi doonaan, iyada oo la eegayo durbaba xaaladda guud iyo sida looga falcelin doono. waxaana tani ay abuureysaa mar kale xaalado waaweyn oo aad markaasi loogu saleyn doono qorshayaashii ugu dambeeyey ee taagnaan dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay. Israa'iil ayaana weli xoojinaysa qorshaheeda gaarka ah iyo tallaabooyinka arrimahan la xiriira marka la eego iyaga iyo Mareykanka qaabka ay wax u karkarinayaan iyo sidoo kale loolanka la geli doono oo haddaba lagu jiro. waxay ka dhigan tahay mid horseedi doonta xaaladihii ugu dambeeyey inay sare usii kacaan, lana qaado tallaabooyin waaweyn oo aad u cusleen doona tallaabooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada dhinacyadan ay wadaan iyo qorshaha ugu dambeeya ee go-aanka rasmiga ah markaasi lagu gaari doono. arrimahan sida gaarka ah u quseysay iyada oo ay soo tarayeen macluumaadkii ugu dambeeyey ayaa haddana waxaa si gaara diiradda loo saarayaa in tallaabooyinkani la hormariyo. waxaa xogaha la helayo ay muujinayaan in ilaa iyo dhowr dowladood oo horle ay kusoo biireen safka hore loolanka iyo qorshaha lagu doonayo in Somaliland markaasi go-aanadeedii hore iyo tallaabooyinkii hore loogu qaaday loo sii adkeeyo, meel adagna loo geeyo go-aanka mowqifka Somaliland iyo qorshaha ay ku doonayso in ajendayaal waaweyn ay ku hanato. macluumaadkii ugu dambeeyey aynu helnay ayaa diiradda saarayay in tallaabooyinkani ay yihiin kuwii ugu waaweynaa ee xogaha dheeraadka ah bixiyey, sidoo kalena dirayay fariimaha aadka u culus iyo dhaqdhaqaaqyada tallaabooyinka waaweyn. waxaa tani ay muujinaysaa marka la eego sida ay wax u socdaan in xaalka siyaasadeed ee hadda taagan iyo qorshihii ugu dambeeyey go-aanada waaweyn ee la gaarayba ay muujinayaan in la adkeeyey qorshayaasha iyo go-aanada waaweyn. waxaana ay tani mar kale sare usii qaadaysaa ajendayaashii ugu dambeeyey ama ugu waaweynaa iyo macluumaadkii ugu xooganaa, waana midda soo dedejiday in sare loo qaado go-aanadan kala duwan iyo macluumaadka arrimahan sida gaarka ah loola xiriirinayay. waxaa tan iyo markii lagu dhawaaqay tallaabooyinka iyo qorshayaasha ajendahan hadda taagan uu muujinayay dhacdooyinkani si gaar ah kuwo u daneynayay in sare loogu sii qaado tallaabooyinka waaweyn, iyada oo ay xoogeysteen mowduucyadii ugu dambeeyey ajendayaasha gaarka ah iyo weliba tallaabada la xiriirta go-aankii ugu dambeeyey ee qorshaha kama dambaysta ah ee weliba diiradda lagu saarayo, oo dhinacyadani ay muujinayaan in lagu kala adkaanayo loolanka siyaasadeed ee hadda taagan iyo mowduucyadii ugu dambeeyey go-aanada kala duwan ee la filayo weliba inay gaaraan heerkii ugu sarreeyey. macluumaadka xasaasiga ah ee soo ifbaxaya hadda ayaana sare usii qaadaya qorshaha ugu dambeeya go-aanada waaweyn iyo mowduucyadan laysku hayo oo heerkii ugu sarreeyey markaasi tiigsanaya. tan iyo markii lagu dhawaaqay ajendayaasha waaweyn iyo qorshaha arrimahan ku saabsan waxay ahaayeen mowduucyadu kuwo aad loo hadalhayo, mar kalese waxay hadda noqonayaan kuwo kasii fogaanaya ama kasii tegaya meeshii hore ay u taagnaayeen marka la eego mowduucyada siyaasadeed ee laysku hayo, gorfeynta arrimaha waaweyn ee siyaasiga ah iyo sidoo kale qorshaha weliba hadda ka dhigan inuu yahay kii ugu dambeeyey mowduucyada waaweyn ee aadka loo hadalhayo, taasi oo meesha ka saaraysa dhammaan wax kasta oo horey loo gorfeeyey iyo siyaasadihii waaweynaa ee jiitamayey waqtiyadii ugu dambeeyey. mowduuca keliya ee hadda taagan sidoo kalena la filayo in aan marnaba gorgortan laga geli doonin waa midda la doonayo in aqoonsiga Somaliland lagu sii fasaxo. waxaana xogaha la helayo ay muujinayaan in Siciid Deni Imaaraadku ay u dhisayaan madaxweynaha Soomaaliya si aqoonsi Soomaaliya kaga yimaada loo siiyo, waxaana taasi ay abuurtay kalsooni badan
oo ay hadda qabaan dhinacyada kale ee tallaabooyinkaasi qaadaya iyo mowduucyada siyaasiga ah ee weliba la qorsheynayo ama la filayo in loo gaaro si degdeg ah iyada oo la eegayo go'aanadii ugu dambeeyey ee xasaasiga ahaa iyo weliba inay dhinacyadani gaareen qorshayaashii ugu xooganaa waxaana tani ay mar kale abuureysaa kalsooni badan oo ay dhinacyadii ugu dambeeyey kusii fadhinayaan. waxaa xogaha hadda soo ifbaxaya ay muujinayaan in dowladda Mareykanka ay weli taagan tahay go'aanadeedii hore waxna aysan ka bedelin qorshihii aqoonsiga Somaliland iyo mowduucyadii kale ee la xiriiray kadib markii la ogaaday in Trump uu ku adkeysanayo isaga iyo dowlado kale oo dhowr ah oo qaramada midoobay ka tirsan weliba kuwooda ugu cadcad ama saameynta xooggan leh in ay markaasi weli ku adkeysanayaan qorshahoodii ugu weynaa iyo tallaabooyinkoodii ugu dambeeyey kadib markii dhinacyadani ay si adag uga dhigeen qorshaha degdega ah iyo tallaabooyinka loo qaadayo sidii loo soo afjari lahaa dhinacyadan kala duwan waxaana tani ay muujinaysaa in ay markaasi qorshuhu kasii dhigayso xaaladihii ugu dambeeyey ee la xiriirinaya dhaqdhaqaaqyada tallaabooyinka iyo sidoo kale go'aanada kama dambeysta ah ee loo qaadayo arrimihii ugu dambeeyey waxaana hadda diiradda la saaraya in si adag loogaga jawaabayo marxaladahan oo u muuqanaya in Trump iyo sidoo kale dhinacyada kale ee ka shaqeynaya tallaabooyinkii ugu dambeeyey inay gaareen heerkii ugu sarreeyay dhaqdhaqaaqyadan aadka u xoogan iyo weliba tallaabooyinka la filayo inay noqdaan kuwa horseedi kara marxaladaha kala duwan dhaqdhaqaaqyada tallaabooyinka markaasi aadka u soo xoojiyey waxaana sidoo kale ay hadda ku dhawaaqayaan dhinacyadii ugu dambeeyey qorshaha kama dambeysta ah ee lagu gaarayo go'aanka aadka u xoogan ee wax ka bedeli kara go'aanadii hore ama wax badan markaasi kusoo kordhin kara mowqifyada kama dambeysta ah ee Trump hadda uu qaadayo si mowduucyada waaweyn ee diiradda la saarayay waqtiyadii la soo dhaafay loo soo gabagabeeyo sidoo kalena mar kale loo horseedo xaalad kale oo ay dhinacyadani ugu dambeyn kusoo gabagabeyn doonaan mowqifyo aad u waaweyn iyo tallaabooyin aad u culus oo loo arkayo inay yihiin kuwii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa iyo weliba arrimaha siyaasiga ah ee taagnaa maalmihii la soo dhaafay iyada oo loo horseedaya weliba go'aankii ugu cuslaa oo ay haddaba ka dhigan tahay in si gaar ah markaasi loo soo gabagabeynayo macluumaadkii ugu dambeeyey oo ay haddaba markaasi muujinayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey tallaabooyinkii ugu waaweynaa waxaana hadda ay markaasi u muujinayaan dhacdooyinka taagan dhaqdhaqaaqyada aadka u xoogan ee Trump qudhiisa uu wado kadib kulankii markaasi ka dhacay Imaaraadka Carabta ee ugu dambeeyey welina uu markaas safar ugu maqan yahay Cabdiraxmaan Ciro qorshaha ugu dambeeya ee mowduucyada hadda taagan ayaa la gorfeeyey waxaana wararka la helayo ay muujinayaan inay sare u sii kaceen dhaqdhaqaaqyadani oo ay durbaba ku dhawaaqeen dhinacyadii ugu dambeeyey garabka siyaasadeed saameynta xoogan leh iyo weliba in si togan ay ula socdaan xaal walba oo arrinkan la xiriira tallaabooyinka ugu dambeeya mowduucyada siyaasiga ah ee diiradda la saarayo iyo in go'aanka ugu dambeeya lagu gaari doono qorshaha kama dambeysta ah ee arrimahaasi ku saabsan iyada oo la eegayo mowduucyadii ugu dambeeyey ayaa haddana Trump waxa uu aad u karkarinayaa siyaasado waaweyn oo culus oo loo arki karo in ay diiradda saari doonaan qorshihii ugu dambeeyey go'aanadii ugu waaweynaa iyo mowduucyo siyaasi ah oo ay ka dhigan tahay waa durbaba in arrimahaasi loo gaari doono si kama dambeys ah looguna dhawaaqi doono qorshaha ugu dambeeya ee lala xiriirinayo dhinacyadii ugu dambeeyey go'aan gaarista qaadista iyo fulinta ugu dambeysa ee qaramada midoobay si looga gado mowduucyadan asaasiga ah iyo xaaladaha ugu dambeeya ee go'aanada la gaari doono ayaa ka dhigan mid xaalka sii adkeyn doona iyada oo ay aad u adkaadeen weliba tallaabooyinkii iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey.